بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa bahda meediyaha codka shacabka iyo saaxiibkay dalmar labadaba salaamaya waan ku hambalyeeyaa sida fiican ee ay ila shaqeeyaan saaka oo ay tahay February 2017 waxaa la xusayaa maalintii la aasaaskii ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo soo maray marxalado kala duwan marka hore waxaan hambalyeeyaa saraakiisha ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland janamadooda oo hormoodu yahay Nuux Taani sareeya gaas Nuux Taani iyo janamada kale waxaan kaloo hambalyeeyaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliland saraakiil xigeenka dableyda iyo xaasiskooda oo leeyahay sanadkiisa ku gaara bash iyo barwaaqo waayo ciidanka Soomaaliland waxa ku hurda shacbiga Soomaaliland anagoo og inaan ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland aan wixii u baahnaa ee mushahara fiican aanay haysan haddana wax walba waxay ka darbideen inay dalkooda iyo dadkooda ilaaliyaan iyo shacabkooda ilaaliyaan taasoo ay hadiga heegan u taagihiin taasoo ay xuduudaha dalka joogaan taasoo ay dhaxanta iyo gaajada iyo qabowgu intuba ay kala weyn tahay ixtiraamka iyo jacaylka ay dalkooda u hayaan xasanaadka iyo waajibaadkana ilaahay bay ka heli doonaan 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 ba waxaan leenahay guuleysta waanu hambalyeeynaa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa la aasaasay sanadkii 1992 markii xukuumaddii ugu horeysay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhisantay oo madaxweyne ka ahaa Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur waxa kaloo aasaaska ciidanka markaa loo magacaabay naxariistii jannaalaha ka waraabiy geesigii weynaa Mujaahid Xasan Yuunus Habane ayuu ahaa taliyihii ugu horeeyay ee loo magacaabay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka qaranku waxa uu ka onkamay ciidamadii SNM oo markaas la qarameeyay oo guutooyin la isku daray guutadii ugu horeysay ee ciidanka qaranku waxay ahayd ciidanka loo yaqaan Sarcaani oo ah dad sharaf iyo karaamo ku lahaa guutadii ugu horeysay ee ciidanka qaranka Sarcaani baa loo jiray waxaana qarameeyay Allahu naxariisto hormoodka haragii qarameeyay Suldaan Maxamed Suldaan Faarax Suldaan Cumar Aabihi Allahu naxariisto beeshaasna sharaf iyo karaamo ku leedahay waa beeshii ugu horeeyay stadium Hargeysa hubkeeda keenta iyo ciidamadeeda SNM keenta ee tiyaada annaga ayaa ugu horeeyna ciidanka la qarameynayo aad baan ugu mahadnaqaya beeshii digta gobolka Hawd iyo koonfurta Hargeysa oo runtii ah ciidii ugu horeysay ciidanka qarameysay ciidanku marxalad gaar ah ayuu soo maray may hirgelin ciidankii uu hogaamiyay Jeneraal Xasan Yuunus Habane dhibaatooyin iyo colaada markaa wadanka ka dhacay dagaalo sokeeya ka qayb galay dawladnimadii iyo systemkii baa luntay Jeneraal Xasan Yuunus Habane markaa waxa ka soo hosjeestay rag badan oo mujaahidiin ah oo wax nool iyo wax dhintayba lambar waxaan ka mid ahaa Maxamed Kaahin Axmed oo golaha dhexe Islaam ka tirsanaa waxa ka mid ahaa Mujaahid Muuse Bixi Cabdi waxa ka mid ahaa Ibraahim Dhagaweyne duruufahaas si kastaba ahaatee siyaasadeed bay ka dhaqaaq waayeen ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland markan waxa mayalka u qabtay aasaaska ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo booliiska iyo militariga markaa xilligii Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal ayaa haddana dub loo yeelay oo la sameeyay ciidankii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka marxalado fara badan iyo madax fara badan buu soo maray sharamadii ciidanka ka mid ah waxa ka mid ah ugu horeeyay Xasan Yuunus Habane waxa ka mid ah Cabdi Samed Gamgam waxa ka mid ah Ismaan Dacas waxa ka mid ah rag noocaas fara badan Ismaaciil Shaqale Jirif Taani oo dhowr jeer soo maray iyo rag fara badan oo miisaan lahaa oo aaga gadisay sida Maxamed Cabdi Aadan Nancade oo ah taliyaha aaga bariga in badan ahaa Xuseen Axmed Guuleed Xuseen Dheere Bocooshe waxa isla galbeedka dhisay
jenaraal xuruun oo imagaa taliyaha ciidanka asluubta oo runtii aada ugu mahadnaqayo doorka iyo dhismaha ciidanka qaranka uu ka geystay xilligaa markii dowladdii ina cigaal waxaad moodaa inaanay milatariga aada u dhisin oo waxaad moodaa in nidaamka milatariga uu kasoo horjeeday maxamed xaaji ibraahim cigaal dhismihii ugu horreeyey ee taya leh ee ciidan qaran leh ee gaashaaman oo hubkiisa iyo tiknikadiisa wata waxaa ku guulaystay oo hirgeliyey madaxweynaheenii hore jamhuuriyadda somalilan mudane daahir diyaalo kaaxin oo ay ka go-nayd in la dhiso la qalabeeyo la tayeeyo ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan meel fiican buu soo gaarsiiyey dowladdana way kasii amba qaaday wax ragga aada loogu xusuusto ee jaramada soo maray ee dhismaha ciidanka qayb ka qaatay mar walbana si ku dadaalayay askartuna ay jecleen niyadna ay u haysay ilaa iminkana ay karaamayaan waxa weeye ninka jaranka ay maanta haysta ciidamada sareegaas nuux taani oo ah lafdhabarta jamhuuriyadda ciidamada somalilan oo ka shaqeeyay in ciidamada xoogga dalka somalilan ay helaan tababaro ama ha noqoto dalka gudihiisa ama dabadiisa oo soo saaray rag fara badan oo kuliyada ka soo baxay oo nuux markii uu haystay wuxuu ku dadaali jiray inay ciidanku wax bartaan inay ciidanku tababaro galaan waxaa kaloo marka laga reebo tababarada etoobiya waxa ay tababaro ku soo qaateen darar weyne oo ah xarunta tababarada ciidamada jamhuuriyadda somalilan waxaa soo baxay saraakiil aada u wanaagsan insha allah markay halkaa taariikhdu marayso isna waxaa ka mid ah raggii ciidamada inta badan soo hogaaminayey ismaaciil shaqale dabeedna waa kii ciidanka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wuu sii tayeeyey kor buu qaaday moolkoodii buu qaaday waxyaabaha taariikhda gale ee lagu xasuusto waxaa ka mid a derajada uu siiyey ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan oo dowladihiisa ka horreeyey waxna waktigu saamixi waayey waxna ay ka baqeen inay derajada bixiyaan cabasho badan waxaa ka timaada derajada laakiin inuu ciidanku derajada lahaado tababaro dheeraada helo aqoon dheeraada helo xilka loo dhibay qofka iyo inay isu qalmaan derajada uu sitaana waxa weeye wakti fara badanna waa la geliyey wakti badanna waa u harsayey dadaalkana waa la wadaa waxa ay ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ay heegan u yihiin ay naftooda iyo ay u hurayaan ee goobaha faranta ay u joogaan ee dhaxanta iyo gaajada iyo sirca wax walba u hayaan waxaasoo dhan kala weyn qarannimada jamhuuriyadda somalilan haddaanu shacbiga reer somalilan nahay waanu hambalyaynaynaa waanu isgarab taagaynaa waanu ku faaraynaa aada iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba u hambalyaynayaa haddii aan israa marxaladaha ciidanka qaranka soo maray halkan ka sheeg hal barnaamij laguma soo koobi karo mar labaad waxaan salaamayaa iyo mar saddexaadba ciidanka qaranka saraakiisha ciidanka qaranka hogaaminaysa saraakiil xigeenka dableyda iyo maxay ahayd xaasaskooda meel kastoo ay ka joogaan carrada jamhuuriyadda somalilan allah mahadle wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu